Assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabi meel walba adduunka ka joogtaan soo dhawaada axbaabi waa walaashina noolina lady boss oo idin leh Ramadaanul Kariim isku soo noqod wanaagsan asxaabteyda aan jeclahay maanta waxaan idiin wadaa cabitaanka afurka waa healthy maasha Allah healthy drink waaye cabitaan caafimaad leh maasha Allah sidaa u sameynaa insha Allah waa idin la wadaagi doonaa soo dhawaada aan isla soconna insha Allah ilaa iyo dhamaadka fiidiyowga ila socda idinkana axbaabi meeshaan hadda si ujeedaanba waxaan ku haystaa sisin waaye maasha Allah aan soo shiiday sisinta maasha Allah aad ay u wanaagsan tahay caafimaadkana aad ay u fiican tahay qofka markii uu afuro sisinta ku afuro aad ay u fiican tahay waayo jirka ay qaboojinaysaa maasha Allah sidoo kale aadna waxay ugu wanaagsan tahay qofka gaaska qabo maasha Allah gaaska way dejisaa mana kiciso ayada maasha Allah aad ay u wanaagsan tahay soo sisinta insha Allah faa'iidooyin fara badan ay leedahay maasha Allah dalkeena oo dhan faa'iido fara badan leh soo sisinta maasha Allah cabitaan la cabo maasha Allah ayada ugu fiican soo waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan hadda waa kana axbaabi waa ujeedin sidaan u diyaariyay maasha Allah kaal iska arag waaye maasha Allah soo ilaa 3 nooc aad tustoona oo galabta afur ka sameeyay insha Allah hadda meesha waxaan ku haystaa sidoo kale qare maasha Allah asagana qaraha waa jarjaraya markii aan jaro asaga barafkiisa korta waan ku soo shiidaya insha Allah soo ila socda axbaabi aan jecelnahay waa kana hadda saa ujeedaanba qari waa soo shiiday waa kana qaraha maasha Allah asna waa kaal iska arag wuxuu u wanaagsan yahay qofka markii ay calooshu socoweyso kale hadii uu qara isticmaalo calooshu way u soconaysaa maasha Allah cabitaan ahaanna maasha Allah aad u macaan yahay una fiican yahay caafimaadka maasha Allah aad u wanaagsan yahay saa ujeedaanba waa kana sidaan u diyaariyay decoration qurux badan waaye waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan soo dhawaada axbaabi hadii aad team noolina lady boss kamid tahay like ha ilaabin inaad saarto share gareyto lana wadaagto asxaabtaada wixii raaya ama fikir aad commentiga igu dhaafto hadii aadan kamid ahayn team noolina ku soo bir oo subscribe gududka taabo gambaleelka furo oo all day si ay ku soo gaaraan fiidiyowada dambe aan soo galina axbaabi share garey insha Allah aan isla socono waxaad ka heli doontaa waxyaabo fara badan oo ku qanciyo axbaabi soo dhawaada ila socda insha Allah hadda meeshaan sidoo kale waxaan ku haystaa cambaha maasha Allah aad u wanaagsan yahay camba qudaarta cagaaran ku jira asaga maasha Allah kaal iska arag waaye cabitaan ahaanna aad ugu wanaagsan yahay fitamiino badan ku jiraan maasha Allah kaal iska arag waaye axbaabi waa soo shiidaya barafkiisa kortaas ku soo shiidaya soo hadii aad u baahan tahay yacni barafka frinjeerka aad gashan kartaa hadii aad u baahnayn yacni ina baraf korka uga shiido ama aad uga darto kale waxaad frinjeerka aad gashanaysaa soo maasha Allah waa kana markii aan soo shiiday okay waa kana saa ujeedaanba weelashan ku shubaya saan u diyaarinaa isla arkayna oo qurux badan yahay soo easy-na waaye cabitaanka mar walba maasha Allah wuxuu u fiican yahay qofka jirkiisa ayuu dib u soo celinaya maasha Allah soo maanta dhan qof sooman oo manaya taa Soomaha wax badan jirkaada ka maqan soo cambaha dib ku soo celinaya aadna wuu u fiican yahay fitamiino badan waa laga helaa maasha Allah axbaabi waxaan rajeynayaa in aad ka heli doontaan insha Allah qofkii aan haysan Ilaahay ha siiyo qofkii aan haystana Ilaahay ha u barakeeyo inta uu haysto maasha Allah asxaabteyda aan jeclahay waa isla soconaynaa insha Allah okay axbaabi hadii aad ka heshaan fiidiyowgan ha ilaabin inaad like saartaan share gareysaan wixii raaya ama fikir aad commentiga igu dhaaftaan asxaabteyda aan jeclahay cabitaanada waxa ugu wanaagsan cabitaanada dalka fruitska yacni maasha Allah fruit healthy
maasha Allah in lagu afuro. Sidaas darteeda noocyo fara badan idin soo geli doonaa oo cabitaane dhowr nooc maasha Allah. Cabitaanada decoration-ka marka u sameynayso waa inaad qurxisaa si ay qurux u noqdaan soo jiidashana u yeeshaan. Maanta saddex nooc waaye waxaan rajeynaa noocyo fara badan inaa idin soo sameyn doono oo aad ka heli doontaan waxyaabo fara badan oo aad ka heli doontaan inaa idin soo sameeyo rajeynaa insha Allah. Asxaabteeda cabitaanada aan sameynayo easy waaye, caafimaadna way leeyihiin. Dadka waaweyn iyo carruurtaba maasha Allah aad ay ugu wanaagsan yihiin. Ka faa'iideysta oo sameysta insha Allah. Isku soo daya maasha Allah. Bisha Ramadaan kuwa ka faa'iideysto Allah naga dhigo oo ajirkeeda helo. Waxaan rajeynayaa insha Allah oo Ilaahay ka tuugaynaa bisheeda kale in Ilaahay khayr iyo barwaaqo bisheeda kale Ramadaanka nagu gaarsiiyo in aan tanna si fiican aan waajibkeena u gudano insha Allah. Asxaabteeda aan jeclahay Ilaahay intii xanuunsan caafimaad ha siiyo, intii caafimaad qabtana alxamdulillah Ilaahay u siyaadiyo. Waxaa jiro cudur xun oo ayaantan soo badanayo. Ilaahay ha naga qabto hana naga badbaadiyo insha Allah. Taxadarka hala badiyo asxaabay. Yacni in la is wacyi geliyo lagama daalayo waa wax wanaagsan in wax la isu sheego maasha Allah. Sidaa darteeda waxaan rajeynayaa in aad ka digtoonaataan oo idinkala tartaarmaya. Yacni waxa ugu daran oo u sheegaya waa hablaha abaayooyinka maxaa yeelay waxyaabaha banaanka laga keenayo waa inaad si fiican isaga nadaamisaan oo yacni si fiican u dhaqdaan wax walba. Maxaa yeelay nadaafadu waa iimaanka barkeeda saa horena loogu sheegay maasha Allah. Sidaa darteeda in aad digtoonaano ku dadaalno insha Allah. Yacni wax caafimaad qaba si aan u cunno aan walaalaheena iyo carruurteena aan u siino cunto caafimaad qabto waa inaan taxadarnaa maasha Allah. Wax waliba in aan caafimaadkeena ka hormarino oo caafimaadka ku dadaalna. Caafimaadka ma aha shay la heli karo maasha Allah. Asxaabteeda aan jeclahay waxaan rajeynaa in aan ku wada dadaali doono insha Allah caafimaadka. Cabitaanka waa inaad mar walba isticmaashaa cabitaan caafimaad leh, cunto caafimaad leh si aad yacni jirkeena difaaciisa u dhismo oo u adkaado insha Allah. Sidaa darteeda asxaabteeda qaaliga ah Ilaahay ha naga dhigo kuwa iska taxadaro. Soo dhawaada axbaabi waa walaashina Nolina Ladyboss. Waxaan rajeynayaa in aan insha Allah aan isla joogno anagoo caafimaad qabno. Axbaabi aan jeclahay mar walba komitiyadiina waa akhristaa ducada iyo dhiirigelinta isugu jiro maasha Allah. Aadaan idin jeclahay run ahaantii aad iyo aad ayaan idin jeclahay. Sidaa darteed soo dhawaada aan isla socono insha Allah tacaala. Okay asxaabteeda haddii aad soo jaabiso aad soo sameyso insha Allah commentiga ayaad iigu soo sheegi doontaa cuntooyinka qudaarta fruitska kuwa ugu wanaagsan oo yacni ugu fudud caafimaadkana leh inaa mar walba isticmaashaan ayaan kula talinayaa. Insha Allah anigoo sameynayo waan idin soo gelinayaa insha Allah tacaala. Idinkana waxaan rajeynayaa in aad ka faa'iideysan doontaan ood noqotaan dad ka faa'iideysto. Yacni in wax la isu sheego waa wax wanaagsan maasha Allah tabaarakallah. Asxaabteeda aan jeclahay meel walba adduunka ka joogto waa walaashina Nolina Ladyboss oo idin leh jasaakumullahu khayr. Assalaamu calaykum.